waddanka Jabuuti oo waddan cajiiba qofka laga baqo inuu dawladdaasi la tartamo madaxweynaha waqtiga jooga dambi ba faraha loo gashaa waxaan ogeyn bari waxaana lagu xukumaa 5 sano siyaasadda ma gali karo anaga bagina la xiriirsan saarade 5 sano ma gali kara siyaasadda Ismaaciil uu qaawan yahay siyaasiyan iyo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan dal 26 sano soo xukumay oo marka ay tahay xukun toos ah marka ay tahay xukun aan toos ahayna wuxuu soo xukumay wax ku dhow 40 sano Jabuuti waa meel dadkii eriyata imika Jabuuti hadii la oran jiray waa beled lagu soo jabo lagu soo yaaco oo masaakiin Korea tahay maanta waa agoon erisa habeen dhow taagan waxa laga dhigay xaflad waxa joogay 10 qof oo reer Jabuuti ah inta kale toodan reer Jabuuti ma ahayn waxayna ku leeyihiin reer Jabuuti af Soomaaliya oo reer Jabuuti lahjadii waa laga fahmayaa markii la soo gali waayay xafladii la iman waayay odayga meesha laga kireeyay intuu dhaadhacay iyo kuwii maqaaxiyaha fadhi soo galay warkaale soo kaca 10 taalo tushay isaga dibadda uma talwaynakiisa ka lacagta u haya waa inantiisa ka maaragtay u haya banka waa siidigi ka u haya maxaan ku dhahdaa iclaamka waa inankiisa ka waa inadeerkii ka u haya dikada waa inanka ka buucina ka u haya ka booliiska u haya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنا iyo marwoniyaal naga daawanaya daafaha adduunka waxaan caawa martiin igu nahay barnaamijka Djibouti iyo maanta waxaad ogsoontihiin labadii toddobaad ee na soo dhaafay in lagu jiray waddanka Djibouti ololo ku sheega doorasho madaxtinimo taas oo يا bulshada nidaamka xukuumaha maamula hadda uu kula hadlayay bulshada reer Djibouti hadaba arintaas aan isku dul taagno caawa waxa marti barnaamijka noogu ah Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo mufakkir si dhowna ula socdo xaaladda siyaasadeed iyo bulshada ee waddanka Djibouti Sheekh soo dhow alxamdulilah assalamu ala rasuulillah adbaan dhawaay Bashiir adigaan ku salaamaya iyo dhamaan daawadayaasha jazakumullahu khairan سؤال ugu horeysa sheekh arinta doorashada ee waddanka Djibouti ka socoto ma doorashada سؤال ugu horeysa wata doorasha ku tilmaamnaa arinta sallallahu baad horta jazakallahu khair kelmadda doorasho afka Soomaaliga marka adigoo Bashiira aad socotido maqaaxi aadid waxaad isweydiinaysaa maxaa yaalo od kala doorataa waxa laga yaabaa maqaaxi Soomaaliyeed inaad tagtid ama maqaaxi Afrikaana Toobiyana amba Djibouti mid xikaasa waxaad maqaaxiyaha arkaysaa bariis baasto hilib kalluun malay digaag kala nooc Soomaa salaad noocya waxaad jeceshaa qaadanaysaa markaas maqaaxi cadaan hadalkiina kala nooc marka doorashadu wax kala duwan baa la kala doortaa wax isku mid ah doorasho lama yiraahdo marka Djibouti waxa ka socda doorasho ma waxa la dhahaa istiftaa waxa weeyaan codayntaasi waxa weeyaan qof u coday oo u jadiidi baycada mar aan inaan saaxiibnahay oo reer Muqdisho iga sheekay بريجي محمد سياد برا إلى أن حريستي ومضحها بيض داعيسي وحنا نوعاس وحال الدورين جري هاي ما ذاك اللي ويديني وحولي إسلام بسواق شيء عدوين نين معارض اسكر دقينا ميشو جوغين وحالو دي ورقة ضوضو ميا هي هاي قرانتا وحالي كوري منا هكا دوليس تلقى دونا لي حاجي دي بس كسو صوتي كي ميا اسكا تورتي تي هادي كوريد وكيلي ساس ماها waxaad yeeli kartaa inaad ka dhow ku ridid waxay ka tiri ooyo hoosta iska dalala bitir waxa meesha lagu rido dhan halka mootay walidaalika wuxuu heli jiray maxamed saad barre iyo jamaal abdul naasir iyo tiito iyo waxay heli jireen 99.999 waxa loo bixiyay shanta sagaalaad at-tis'aat wal-khamsa bay heli jireen adduunka markaa doorashada lama yiraahdo ومسلمين أنا واحد مرجري جري ضد مضح وحوق قبصة أو متقلب هذا إمام متقلب فقه قرطة محل جاي على حاكم المتقلب مركب بعدل على الجلايو لما ضرته ولو جديد يوم وح مركب قاركو دي عجرسي
baycada gala oo imaa asuyuufu calaa riqaabikum seeftuna qoortay dhigata allah marka walidaalika imaam maalik raximahullah wuxuu diiday waxa loo yaqaano adalaaqu lmukrah in qofka lagu qasbo inuu islaamtiisa furo marka waa lagu cadaabay maxaa loogu cadaabay waxaad u jeedaa baa boqorka baycadiisu waa mukrah waa qasab leen luqadda afka shimbiraha lagu hadla ma kala cabsado mugta af shimbireed buu ku hadlay bay yidhahdeen marka baycadaasi waxaa lagu cadaabay maaha baycadii muu diidin wuxuu diiday ninka gabadhiisa xoog ma lagaga furi karaa wuxuu yidhi maya haddii xoog laga furo ma furmayso marka maadaama ay xoog ku furmin waxaad u jeedaa baa yidhi baycadu ma guntamaysa haddii xoog tahay waana xaqiiqada waa sidaas maanta adduunkan waxa ka socdaasi doorashada dibadda ka socotaasi waa nooca weeyaan okay inta haddaan kaga soo baxno waxaan u gudbaynaa doorashadan ku sheega hadda imika Djibouti ka socoto marka laga eego xagga dastuurka ee qaanuunka saxiix iyo xagga sharciga dastuuriga qaanuuniyada ay leedahay dhinaca qaanuunka iyo dhinaca diin ahaanba صحيح يعني أرنت ورنا إنا مارك تيفتيمسي horta waad ogtahay oo islaamku shareecada ilaahay oo dastuurkeena waxa ku qoran islaamku waa diinta dawladda marka dawladda waxa diin u ah islaamka macnaha waxay ka dhigtay dastuurka waxa ka sareeya sharciga ilaahay ba ka sareeya islaamka ka sareeya horta waxaan ku qoranaa sharcigu muxuu ka qabaa doorashadan sharcigu wuxuu ku leeyahay qofku marka uu wax dooranayo waxay ka dhigan tahay uu marag fur weeyaan culimadeena waxay yidhaahdeen markay dhaadhaceen naazila siyaasiya maxaa cusub oo ku soo biiray nolosha la baadha islaamku waxaa soo biiray waxa dhacdo doorasho oo waqtigii saxaabada aan jirin dhowr qof oo loo kala coday bay jirayso doorasho laakiin dhowr qof lama kala codeynayna marka muslimiintu mid bay sharaxayeen waxa ninka ka warrama uu fiican yahay isaga la qaadan jiray amba waqtigii Cusmaan bay dhacday oo 6 nin ayuu Umar sharaxay 6 nin ma uu dooran dad baa uu doortay uu sharaxay 6 nin ka dhex doortay buu muslimiinta madaxiina 6 nin aa tartan la gashay tartan waxa la gashay tartankii la gashay ragii geliyay waxay yiraahdeen waxaan weydiinay qof walbaba ilaa aan u tagnay gabdhaha guriga ka soo bixin محجبات كين سو بحين يا متغني دقاع متغني غري فمال الناس الى عثمان علي عثمان اسكو سو هاري ما كدم لخدي waxa isku soo haray علي عثمان dadkii maxay u yeesheen عثمان baa u yeesheen waxayna ugu yeesheen waa la macnaa waxa li Umar oo adag muhiimka laga soo baxay علي oo adag haduu sii qabto dadku waxay doonayeen nafsadaan marka عثمان ma ku nafsanaa bay dhahdeen رجع تاريخ البارة واحد هذين عالم يدورون الهايين ويسيسوا على هذا يقولي دورنا نسيجر لكن بالباطل بعد مرة بعد أكيد واحد إلهي قدر وين أنا قد ما كاتاك إيمان وحويان ما أنت دورشته واحد هو مركفر قف مركفر يوم حال جربا النبي صلى الله عليه وسلم مركها فرين أديه سد عدياده كبد السماء كنت هو حوارك يا ماهل قف اعتقانيت بالله نكاسي مدح ضلك وكنقع كرام دينتي ساتقانا دقاليسا تقانا عقليسا تقانا اوكي حداد قف كاسي اد غيرنيسيد انو دلك بربرينيو بابين دونو لكن اد العقل قاطي اما جاد رضعنتي ام عبسي ولا عبسوتي او تراجي وحما ما حي كلا سوده تراجي waxa dhacdaa taas ma mashruuc yar meel kaaga furan ama mashruuc yar ugu furan waa marag beenaale rag badan oo meelaha noogu yimaadaan ka arkaa sawirada qaar iyagoo meesha fadhiyo saale markay dhulka yimaadiin waxba meesha ma jiraan bidadaan marka waxaan uga jeedaa waxaan bashiirow nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dambiga ugu weyn waxa kamid ah shirkiga waxa ku xigay iyo hooyada iyo waalidka aabaha oo la caasiyo in marxaati been la furo 3 jeer buu ku ceshay ilaahina quraankiisu ku yiri waa iska dheeraada yani sida khamriga maxay khamriga fajtanibu tan waxa yiri fajtanibu ka dheeraada maxaa ka dheeraanaysiin qawl az-zur sida uga dheeraanaysiin arrijsa bil awtan marka waa la sabab dhigana taas marka ka soo baxo xagga sharciga dastuurka dalkeena u yaala waa dastuur tacadudi baa dhaca wuxuu leeyahay waxyaalo kala badan kala doorta qof kastii oo reer Djibouti oo 40 sano gaarina oo nan dambi gelina xaq wuxuu leeyahay inuu doorto oo isna doorto ولذلك ودن كجيبوتي وضيع عجيبة قفك لقى بقى إنه دولة داسي لا ترتمى مدحوينها وقت جا جوجا دنبي بفرح لو قشا
waxaan ogeyn beri waxaana lagu xukumaa 5 sano siyaasadda ma gali karo anaga bagina la xidhay saasay 5 sanana ma gali karaa siyaasadda waxaa kaloo saas lagu xukumaa geedi iyo gabayo iyo muumin iyo ali xamadi iyo ragin saas lagu xukumaa isagoo loo preparation loo sameeyay Ismaaciil Umar Geelle marka Ismaaciil Umar Geelle maadaama uu maartay waxa la dhahdaa hal xaraan nigir xalaal ma dhasho suu ku yimid ba xaraan ahayd nigirtii xaraantii baa imika wada haysata isageena wuxuu sii wadaa barnaamijkii nafsi barnaamij iyo wada barnaamijkii Faransiiska ka dhaxleen oo maartay xarbi lagu eriyay oo dalka uu yeenoogay kii bay sii wadaan marka ariga waxay la tahay dastuurka Ismaaciil Umar Geelle lagu dhaartay walaalkay wuxuu ku dhaartay maalintii uu xukumayay 3 shay oo waaweyn 3dii uu dumiyay wuxuu ku dhaartay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka inuu qabsan doono laba wuxuu ku dhaartay in uu dastuurka ilaalin doono 3 wuxuu ku dhaartay wadanka midnimadiisa iyo xuduudiisa inuu ilaalin doono kitaabna ma haysto waad ogtahay oo diin lagu dabaqay Djibouti laba dastuurkiina 2 jeer buu dumiyay isagoo daniisa u dushaday 3 wadankiina qayb baa la haystaa oo Eritrea inaga haysataa haddana iyadoo laga haysto ciidamadii in wadana kala difaacaan ninka waxaa la dhacdaa markaad kaba ka tuulaysid maxaa kiisa leega qofku waa inuu isagu wadankiisa horta uu isku yaalo oo laga kala qaadan markaas waxay la tahay qaanuuniyana khaladka weyn baa ka jira dastuuriyana khaladka weyn baa ka jira haday tahay sharciyana khaladka weyn baa ka jira marka dastuurkana waa lagu khaldamay wax la kala dooranayo ma jirto dadkii oo dhan buu ka cishaday markaas ay la tahay jazakallahu khair su'aasha xigta annagu si soconayna barnaamijka muxuu Ismaaciil uga cabsadaa mucaaradka Djibouti muxuu cabsadaa صحيح horta dad fara badan baa qababa Sheekh Bashiiro Djibouti mucaarad ma jiraan dadka ma reer Djibouti ma dadka aan aqoon Djibouti aan la socon aan xaaladda siyaasadeed waxaan Djibouti mucaarad male midda kale waxay yiraahdaan mucaaradka Djibouti hadii leedahay halkii mareen wayna og yihiin oo wadanada dictatorku ka jiro mucaarad male mucaaradku waxa dictatorku shaqada uu qabto waxa weeyaan inuu dadka u diido mucaaradka wadanadan la yiraahdo afka Faransiiska wax ku bartay imikay soo xiroobayaan asalkooga waxa la yiraahdaa waa Faransiiska nidaamkiisa way dadku waxa u shaqo tagaan dawladda marka Afrikaankuna markii dawladda loo wada shaqo tago dawladda nin baa yeeshay ninkaasi wuxuu mishaarka dawladda siiyaa ninka isaga ogol ninka aan ogolina gaaju ku dilaa marka siyaasadda Djibouti ka jirta ee mucaaradku horta Djibouti waxa ka jira 2 mucaarad oo aad u culus magacadoodan ma jeclayna sheego laakiin mucaarad magac buu leeyahay midna magac kale leeyahay mid waxa la dhahaa mucaaradka hubaysan mid waxa la dhahaa mucaaradka aan hubaysnayn ee nabadda ah mucaaradka hubaysan fruit baa magacooda la dhahdaa gadaama ya madaxwa nin weyn oo la yaqaan reer Djibouti mararka qaarkood wadanka beelo badan bay iska qabsadaan habeenadii meelaha qaar waxa la dhahaa habeenkiina iyaga xukuma dhalaatiina ciidanka Djibouti waa xukum dadka beelaha deganna way la shaqeeyaan oo iyaga si cuntada iyo nolosha dhanba siiya saadaraad bay diyaaradahan yar imika la bartay bilaabeeloodka Djibouti soo ibsatay droonka inta kiciso iyo islaam iyo hableero adil la jooga iyo meelaha ku soo leysaa marka la dhado waxa leyseen waa shacabina way tagtaayo raali noqday tiraadaan sida maartay ciidamada reer galbeedka markay muslimiinta laayaan raali noqday tiraadaan magar bixiyaan kuwan aan musallaxa aan haynin hubaysnayn way badan yihiin dalkana way joogaan mucaaradka dalka jooga muxuu uga cabsoonayaa markaas inay la dhigtaan أنا waxaan isleeyahay 3 arrimood oo weyn baa jira arinta koowaad waxa weeyaan Ismaaciil uu qaawan yahay siyaasiyan iyo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan dal 26 sano soo xukumay waa marka ay tahay xukun toos ah marka ay tahay xukun aan toos ahayna wuxuu soo xukumay wax ku dhow 40 sano marka laga soo bilaabo 89
wuxuu ahaa madaxweynaha rasmiga ah ee gacanta birka ah hoosta dalka ku hayu ahaa ee amniga ah markii ay soo gaadhay 95 iyo 4 madaxweyne guuleed wuxuu soo saaray ilaa uu naxariistay dikreeto ay ku qoran tahay 4 arrimood Ismaaciil baa ka taliya oo ugu daratiisi amniga maaliyadda arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo ciidanka 4 taaba ka taliya waa madaxweynaha wuxuu qabanayo dhaliya loo sii dhibay kadibna halkaas buu ka sii waday ilaa uu 99 meesha qabsanayay 99 markuu meesha qabsaday waxba kama jiraan aan sheegi doonaa maanta hadduu yiraahdo waxa aan jirin in la arko buu ka cabsanaya marka waa la qaawinaya qaawinada oo ka cabsada arinta labaad uu aadka uga boqo waxa weeyaan Ismaaciil waxaa jooga dadka la tartamayay oo dad aqoon ahaan ka aqoon badan rag doctoraa haysta jooga rag master haysta jooga ka ugu yar baa haysta maxaan ku dhahdaa kan dhalinyarsan energy-ga ka maskax badan marka wuxuu isleeyahay waad khashifmaysaa oo khashifad weyn baa dhalanaysaa marka taasina waa midda labaad weeyaan mid saddexaad baa jirto waxa ku dhacday wax dhacdo uu isweyneeyey kadibna waa la weyneeyey waxa weeyaan qof wax loo sheegi karo maaha la oran karo waa lagu tartamaya maaha qadaasa ku dhacday taqdiis baa ku dhacday ولذلك wuxuu ka yaabaa in la dhahdo uu khaldamay ama waxa ma loo sheegi karaaba mar dhaweyd waxaan maqlay booqasho ku tagay Soomaaliya waa arrimaha markaad fiiriso marka miitinada ama meelaha lagu la kulmo xataa dadku markay wax weydiinayaan dhalinyarta iyo dadka xataa hadalku ka xumaaday aaba sheekadba ay ku dhamaato xataa qofkii loo u socday ujeedo inuu sidii wixii u socday inuu gudbisto message-kii uu rabay uu ka kala lumo madhood wuxuu tagay magaalada wuxuu tagay xamar waxaa lagu yiri reer muqdisho waxba weydiinayna wadaygu baryahan ma fiicno amaanana in badan labadaa loo sheegay marka waa dhegtiisu waxay maqataa ammaan iyo waxay maqashaa wax qabad beena intaasay maqashaa marka critic ba imanaya marka madaxweyne soo sharaxo rag waliba aqoon leh soo sharaxaan la tartamaan critic ba imanaya critic ma qaadi karayo marka sidaa daraadeed waxa ku dhacday waxa la dhahdo Qadaafi oo kale okay su'aalka shaqa ka dhaxgalo madaxweyne Ismaaciil ma awoodi karaa inuu xataa kan odayga nimka la tartamay Maxamed Faarax Samatar inuu dood TV-ga Djibouti inuu yimaado dood siyaasadeed oo bulshada oo dhan ay daawanayso oo la galo ma awoodi karaa ma awoodi karayo ma hadli karayaba inuu soo diro Moojan Cabdalla Migir ra'iis oo dadka maartay wallaha u qaabilsan amba wasiirkiisa maaliyadda Ilyas inuu soo diro mooyaane amba wasiirka arrimaha dibadda uu soo diro mooyaane isagu ma gali karayo dood horta ahaan ma gali karayo waa daalaya maskax ahaanna ma soo jeedo haddii dadku boqolkiiba 90 bakood bismeena ma doorashada ma iman doonaan inta ibatana waxay la dooran doonaan maxamed ninka la dhiganaya ay dooran doonaan haddana maca dalika wuxuu sameyn doonaa sida imika aan hore u sheegnay 5 buu siin doonaa wax ka yar isaguna wuxuu qaadan doonaa inta kale badan 90 iyo ka sarreeyo qaadan doonaa inkastoo habeen doonta maqlay way fadhiisteen waxay dhahdeen Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu 90 ilaa 95 buu qaadanayaa ma ka yar hooseysiinaayo 80 ma ku siinaa 80 yartay buu koruga qaada jazakallahu khayr haddaan ku socodno barnaamijka sheekh qaybta yani waxa jiro election-kan amba doorashadan imika ku sheega markaad u fiirsato maamulka ay u socoto ololaha dadka hadlaya maaragtay reaction-ka ay bixinayaan dadka isku yimaada meelaha uu maaragtay la soo ururiyay waxa moodaysaa focuska inuu Ismaaciil Cumar Geelle iyo systemkiisu ay saarayaan bulshadii Djibouti intay ka qoosteen in ololo mar hore la bilaabay oo USN tabriigi aan USN ay kula jirtay in markii yacna dadkii kaadirka ahaa ee Djibouti ay mucaaradka ay saartiyeen ay raaceen in loo yimid xataa in masaajidadii dad aan xataa la garanayn wadaadaan la garanayn in laga buuxsho bulshadii la hor keeno dad xataa Djibouti baahayn la hor keeno maantana waxaad arkaysaa ololaha doorashada
dad xataa reer Djibouti ahayn in dadka reer Djibouti inta laga aamin baxay dad kala la hor keeno ay u ololeynayaan in Cumar guuda iyo dibadba waa gartay amba youtuber ha noqdo amba fanaan ha noqdo amba ha noqdo qof kala oo de people figure amba qof caan ha noqdo xataa kuwii isaga taageersan ninka aamin baxeen waxaa la yidhahdaa nin dad qaaday maxaa la yidhahdaa xumbo qabsi okay Ismaaciil markii la daad baa sitaa daadka sitay waxa weeyaan waa daad weyn oo ka imanaya ubadkiisu daad weyn oo ubadkiisa iyo xaaska ka imanaya sitaa daadkaasi waxay ka leeyihiin adduunka maanta dadka raadeeya mataqaanaa aabbo ma yaguraayo dadka la tartami kala ragganina cadibay ee culimada le ee aqooyahan kale ee markii hadlaan dhageysanayo ragga la tartama taqaana maya yubeeteer weyn caalamka ayaa jooga oo Soomaaliya hagee joogaan Soomaaliya joogaan iyo Yurub soo qaadooyin kana maxay u baahan yihiin mar hore inta la soo ururiyay ayaa inta lagu shaqeeyay iyo habeenkii ay alaabtii dhamaatay baa loo dhiibay lacagtii nin baa loogu dhiibay wasiir waxa lagu yiri lacagta u qaybi waxa la sheegay in hotelkii Cambeski Sheraton Fedlis kala daalay markii khamri la cabay oo maartay la baahay imika waqtiga dheer waa 2 toddobaad waxaan u maleynayaa ina maalin walba wuxuu la siiyo lacagtii wadankuna halka ku baabaaday oo hoteelada weyn la degan yahay ku baabaaday iyo waxa la siinayo waxa weeyaan dadka maxaa looga aamin baxay waa la ogyahay kan kalsooni lagu ma hayo kan qalbiga wuxuu ku hayaa la ogyahay oo lacagtu ka qaadi kumana shaqeynay si fiican kumana codin doon marka kan dadka kaama weelnay ee geerinay dadku inay dhageysanayaan kan warka u dhiib ولذلك waxaan galaa meelaha lagu soo bandhiga barnaamijka madaxweynaha meesha ugu badan 2,000 qof baa daawata 3,000 qof baa daawata dadka u yeedhaan inta bay dhaafi lahayn laakiin haddii ay doorashadii ka socon jirtay Soomaaliland baa la socon jiray mood 400,000 350,000 iyo daawanaysa oo soo galisay oo maartay meesha daawanaysa markay idaacada MM tahay tahay kuwa kala haday tahay dadka daawanaysa saxayeen meesha binaadam daawanayaan ولذلك مر لويد أنا أكو قبضني حبد معارض كان أكو قبضني أو لسيد داي الشديد اللي بدو حي قاعد بقولكم إلا إذا عدي سيدين يسوي ركوس وقاعدين الذين وحلا ماشى كسعتها مرتي كعين بلشو ومركب بقولكم شيء دافيس وأفراد سعيد ولا كارين لكن يك هذا الكوكو ma dhaafayo maartay 2,000 qof dhaaf marka dadka way garanayaan reer Djibouti in waxaan ka daaleen laakiin ciyaalkan yar ee la soo qaaday waxay moodayaan in la dhageysanayo marka dadkani kama uu aamin bixin dadkiisa uu ogyahay dadkiisu inaynan waxba ka qaadeen waxaana la aaminay barigii aan eesanta ku jirno waxa oranay war wixiina ka qaata codkana meeshiina mariya waxa wixiina ilaana xoolahan soo xaday oo inay qaybinayo wixii ka qaata wixiina laakiin codkiinu meesha sharciga mariya marka reer Djibouti saas uga cabsoonaya kuma kalsoono laakiin kuwani waa la soo kireystay waa ogtahay ciidamada maartay Faransiisku adduunka markuu qabsan jiray caalu shaqaystayaal misaneero weeyaan dad aan waddanka ka naxay weeyaan iyagoo dhooqada dul socda maalin dhowta mid baa Djibouti tagay meelaha degan wuxuu sawiray magaalada fulxumadeeda kor buu ka sawiray markuu magaaladii tagay oo sawirkii soo dhigay waa la qabsaday dabcan ninka ma hayn nin degan halkan ninkan waa nin rijijigo